goor aroor ah taariikhdu ay ku beegan tahay 22 bisha 9 2020 saacaduna waxa ay dul hooganaysaa 8 subaxnimo deegaanka Yeedow oo u dhaxaysa Ceelwaaq iyo Dhamas 20 kiiloomitir dhinaca waqooyiga kaga beegan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo shacabkii tuuladaas oo ah dad xoolo dhaqato ah oo ku kala jiro howlal maalmoodkoodii caadiga ah ayaa waxa ay hal mar isbedelay jawiga tuuladaas oo boorka iyo siigada cirka isqabsaday kadib markii afafka hore ee tuuladaas ay soo gaareen ciidamada xoogga dalka Kenya ee loo yaqaan KDF kuwaasi oo rasaas hubiyay dadka shacabka waxaana halkaasi ka bilowday argagax iyo kala carar rasaastii ay ridayeen askarta Kenya waxa ay haleeshay Cabdullaahi Warsame Abeyle oo wiil dhalinyaro ah waxaana halkaasi Kenya ka bilaabeen jirdil ay u geysteen shacabka deegaanka kadibna waxa ay hore u sii qaateen wiilkii meedkiisii iyo saddex kale oo uu ku jiro wiilka la dilay aabihiis kadibna waxa ay kala talaabeen xuduud beeneedka labada dal meedkii ay qaateen ayay ku aaseen meel 10 kiiloomitir gudaha dalka Kenya halkaasi oo shacabka Ceelwaaq oo ku raad joogay ka daba tagay oo ka soo qaaday meedka wiilkaas ciidamada howlgalkan sameeyay ayaa waxa ay ahaayeen ciidamada Kenya loo garan og KDF waxayna ka soo duuleen tuulada Ceel Qooje oo fadhigoodu ahaa waxayna ka soo gudbeen xuduud beeneedka gudaha degmada Ceelwaaq kadibna waxay u jeesteen dhankaas Yeedow oo falkaas foosho xun ay ka geysteen waxaa degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ka dhacay isu soo bax ballaaran oo looga soo horjeeda gabadfalada ciidamada Kenya ee ka geysteen deegaankaas waxayna ugu baaqeen dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay wax ka qabato dhibaatooyinka joogtada ee ciidamada Kenya ka geystaan degmada Ceelwaaq iyo tuulooyinkooda waxayna sidoo kale ugu baaqeen in ciidamada dawladda sida qaaska u tababaran ee gorgor iyo harmacad xuduudaha la geeyo si aysan u sahlanaan in ciidamada Kenya ay xuduudda ka soo talaabaan dhaqaane Abeelle Cilmi oo ah wiilka adeerkiis oo banaanbaxa ka hadlay ayaa sheegay in dawladda Kenya ay 2016 deegaanka Buseer ku dileen wiil isaga uu dhalay maantana waxa ay si gardaro ku dileen ayuu yiri wiilka aan adeerka u ahay waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada Kenya ay hore u qaateen walaalkiis oo marxuumka aabihiis iyo laba qof kale oo dhaawac kuwaasi oo nolol iyo geeri aan meel lagu haynin waa kan dhaqaane Abeelle Cilmi oo arintaas ka hadlaya aniga waxa la yiraahdaa dhaqaane Abeelle Cilmi wiilka dhintaan adeer u ahay 1900 waxay dileen wiil aniga aan dhalay oo gaalada ku dishay Buusaar haddana shalay oo taariikhda 23 bisha 9 wiilka adeer waxay dileen kii ila dhashay wiilka dhalayna waa la tagay waana dileen oo marayna xasuuqa waa socdaan marka wax beesha loo talagalay sidoo dagaalku u dhacay alcada waa xasuuq oo hurgaanta ugu talagalay inuu ku la xasuuqo badda Soomaaliyeed oo beesha gobolka Gedo degta sidoo kale shacabka Ceelwaaq ayaa si adag uga hadlay dareenkooda waxa ayna cambaareeyeen dawladda Kenya iyo gabadfalada ee ka wado gobolka Gedo qaasanta degmada Ceelwaaq hadaladoodana waxa ka mid ah sida tan arrin cusub noqotay oo dadka la laynayo oo masaakiintii guryaha ku jirtay la dilayo dadka anaga waa ka meydka nagi eber baa laga dhigay farmaajo gurigiisa in gala guri kala wax ma taan gurigaaba laga saagaan war laga saagaan wasaabali baabaaday saari Allah waa baabaaday dawladda Kenya dawlad ma hanbaleeyahay sideedaba waxa weeye waa burcad mid dalka u soo duushay waa ayaga dad dalkooda iyo diintooda iyo islaamnimadooda ay fiican tahay baan ahayn qaar ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo war saxaafadeed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa cambaareeyay dawladda Kenya falka ay ciidamadeedu ka sameeyeen deegaanka Yeedow waxaana xildhibaanadaas ka mid ah xildhibaan Hashim Nuur Aadan xildhibaan Daahir Amiin Jeesow xildhibaan Maxamuud Cali Magan iyo xildhibaan Faarax Cabdi Xasan waxaana hadaladooda ka mid ah sida waxaan cambaareynaa dhacdada shalay ka dhacday Ceelwaaq gobolka Gedo dhacdadaas oo ahayd ciidamo Kenyan oo KDF ah oonan Amisom oon ahayn Amisom yaa waxay soo galeen oo ka soo gudbeen dhinaca Kenya waxay soo galeen Ceelwaaq waxay tageen tuulo la yiraahdo oo u dhaxaysa Ceelwaaq iyo Dhamas 20 kiiloomitir u jirta Ceelwaaq tuuladaas waxay u tageen dad degan oo deegaan ah dadkii ay soo qabteen waxay soo aruuriyeen 4 rag ah oo kamid yahay Maxamed Sheedi Xasan Warsame Barre Qorane Cabdullaahi Warsame Abeyle iyo Warsame Abeyle Cilmi afartan ragga ah way qabteen way jir dileen
meesha ay ku dileen nin bay ku dileen oo madaxa xabad aga dhufteen saddexda kale iyo ninkii dhintay meedkiisii way qaateen waxayna la aadeen dhinaca Kenya xuduud ay la gooyeen maanta kuwa aan ahayn AMISOM inay soo galaan ee ay dad ku laayaan gobolka Gado marna ma u dulqaadanayno dawladda federaalka qaasatan xukuumadda madaxweynaha iyo muxuu ahaa iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee shalay aan ansixinayba waxaan rabnaa arrintaas haddaan nahay baarlamaanka inay ay nooga keenaan warbixin waafi ah maray diyaaradaha ku garaacaan iyo maray inta soo galaan ay laayaan oo magac shabaab u yeelaan shabaab way ay yiraahdaan intaas dhib badan bay u geystaan wax kale iska dhaafay waa dadka laay xoolaha geeli iyo xoolaha ayay ku duqeeyaan diyaaradaha waxay inta ilaa iyo heer webiga ay tagaan ayay geedihii cambaha iyo dhirtii miraha lahayd ayay baabi'iyaan waa cadowtinimada moogta waa kala fog tahay moogta dadkii hal la laayo wixii ay dhaqan hayeen hortoodba hal la laayo waa arrin aad u adag weeye arrintaas ma aha arrin loo dulqaadan karo haddaan nahay xildhibaanadii beesha xildhibaanadii deegaanka xildhibaano Soomaaliyeed golaha shacabka deegaankaasna intayada badan ka soo joodno haddaan nahay ma aha wax la qaadan karo waa ka xunnahay waana ku cambaaraynaa dawladda Kenya waxaan xasuusinaynaa dhimashadaas faraha badan oo ay geysanayaan iyo tacadigaas inuu record leeyahay haddii maanta aan lagula xisaabtamin oo aysan arag cid mas'uuliyadaas qaadato kula xisaabtantana xisaab la'aan inaysan ahaan doonin lagula xisaabtamayo oo aan la isaga harayn intaasaan rabnaa inaan xasuusino banaanbaxa maanta ka dhacay degmada Balad Xaawa ee gobolka Gada ayaa looga soo horjeeday gabadfalada iyo xasuuqa lagu hayo shacabka degmada Ceelwaaq waxaana ka hadlay xildhibaan hore xildhibaan Cabdifitaax Nurmatan oo ku sugan degmada Balad Xaawa waxa uuna sheegay inay dhamaatay waqtigii mudaharaadka waxa uuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay qoryaha qaataan una diyaar garoobaan dagaal waa dhamaaday banaanbax dambe waa dhamaaday waxa weeye hadal dambe waa dhamaaday shacabka Soomaaliyeed ciidamada qaranka mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer waxa weeye maamul inta waxay u diyaarsan yihiin inay qoryaha qaataan tootaha gashtaan shacabka Soomaaliyeed iyo deegaankooda inay difaacdaan maamulka Jubbaland oo dhisan muddo 8 sano ah ayaa sidii caadada u ahayd lagu yaqaanay in aysan ka hadlin wixii gabadfal ah ee ciidamada dawladda Kenya ka sameeyaan degmooyinka gobolka Gado ilaa ay haddana wax war ah kama aysan soo saarin gabadfalka ay geysteen ciidamada dawladda Kenya ee loo yaqaan KDF iyadoo ammaanka degmada Ceelwaaq ay gacanta ku hayaan ciidamada daraawiishta ee Jubbaland dawladda Kenya waxa ay cadow u aragtaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan qaasatan beesha Sade oo marar badan laga dareemayay heerka cadowtinimadooda waxa ayna soo bilaabatay sanadkii 1980yadii kadib markii beesha Sade laga musaafuriyay dhulkii ay deganaayeen ee waqooyi bari dalka Kenya kuwaasi oo loo soo talaabiyay dhinaca xuduudda Soomaaliya September 22, ciidamada Kenya waxa ay 6 qof oo ka soo jeeda isla beesha Sade ku xasuuqeen deegaanka Janaayo Cabdale oo Kismaayo u jirtay qiyaastii 50 kiiloomitir kadib markii maalmo ka hor ay sheegeen in ciidamada Kenya ay Kismaayo ka qabsan laayihiin beesha Sade oo Al-Shabaab garab u ah hadalkaas oo ah wada loo maro xasuuqi beeshan oo ilaa ay maanta taagan Janaayo 2016 dawladda Kenya waxa ay sheegtay in beesha Sade ay qayb ka ahayd dagaalkii ciidamadooda lagu laayay ee degmada Ceelcade ee gobolka Gado waana arrin kale ee dawladda Kenya cadeysay in ay damacsaneed in ay xasuuqdo beeshan waxa ayna ku bilowday duqeyn cirka dhulka dil kufsi boob iyo hanti burburin haddaba shacabka gobolka Gado siyaasiyiintooda wax ka radkooda aqoonyahanadooda iyo culimo udiinkooda waxa looga fadhiyaa sidii loo badbaadin lahaa beeshan uu cadawga ku biirsaday